السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. runtii caawa waxaan doonayaa inaan siiro kooban uga faalloodo buuggan aad aragtaan dharaaro xusuustood gees iyo gees. waxaan doonayaa sidii aan buuggii maalintii dhaweyd oo kale uga faalloodo buuggii uu qoray sayid axmed dhegey ee ka sheekeynayay inqilaabkii 1960. buuggani waa dharaaro xusuustood, waa daabacaadii labaad. waxaa qoray siciid maxamed gees iyo maxamed siciid gees oo ayna yaabihii. runtii waa laba nin oo wiil iyo aabihi khibrad badan u leh maamulka iyo maareynta howlaha dowladda, dhismaha bulshada iyo waxyaalo badan. haddaynu eegno siciid maxamed gees oo ah waxaa imika si fiican runtii somaliland looga yaqaana gees oo xillo badan kasoo kala qabtay. siciid maxamed gees oo ah aabaha runtii waxa weeyaan wuxuu ka mid ahaa mihnadayaashii caafimaadka. wadamo badan buu wax kusoo bartay, aqoon kororsi u tegey. waxaa ka mid ah Kenya, UK, Philippines. runtii waxaanu ka shaqeeyey cusbitaaladii Hargeysa, Berbera, Muqdisho iyo meelo kala duwan. intii aanay dowladdii Soomaaliya ee 1960 ilaa 1911 aanay burburin, waxa uu heerarka shaqo kala duwan ka noqday. wuxuu noqday agaasimihii dabargoynta cudurka furuqa, agaasimihii hakinta cudurka duumada, agaasimihii waaxda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga. kadibna wuxuu noqday maareeyihii komishanka qaranka qaxootiga. siciid maxamed gees waxa uu kaloo ka mid ahaa aasaasayaashii ururka bisha cas ee Soomaaliyeed dhinaca Hargeysa iyo Muqdisho. howlahana wuxuu sii waday ilaa 1990 sida ku qoran inankiisa maxamed siciid gees. runtii sida ku qoran shahaadada koowaad ee culumta wuxuu ka sitaa physics-ka, isla markaana wuxuu shahaadada heerka labaad masterska ku sii sameeyey takhasus u gaara oo uu kusoo qaatay ingiriiska. wuxuuna kusii takhasusay solid state physics waxa loo yaqaano. wuxuu macalinimo ayuu ku bilaabay mihnadiisa professionkiisa oo dugsiyo hoose dhexe manaahijta ayuu ka shaqeyn jiray. wuxuu noqday markii dambe bare sare oo jaamacadeed ayuu noqday. waxa uu noqday kulliyadii la foole ee macallimiinta lagu soo tababari jiray. wuxuu noqday ayuu waaxda physics-ka ayuu madax ka noqday. wasaaradii dekedaha iyo kalluumeysiga ee Soomaaliya ayuu kaloo kasoo shaqeeyey. wasiir ka noqday. sidoo kale intii ka dambeysay wuxuu ka mid ahaa Somaliland wixii ka dambeeyey 1997 guddigii habeynta dastuurka Somaliland. runtii wuxuu noqday wasiirro kala duwan buu kasoo noqday. wasiirka qorsheynta qaranka, wasaaradda maaliyadda ayuu wasiir ka noqday, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda kalluumeysiga. waxa uu kale oo uu agaasimaha fulinta kasoo noqday akademiyada nabadda iyo horumarka Somaliland. waad arki kartaa niman khibrad u leh, inan iyo aabihii khibrad u leh habka hogaaminta dowladda, dhismaha bulshada, aqoonta, wax walba. runtii marka la eego buuggan waxa uu ka kooban yahay 532 bog. laakiin runtii marka la eego haddii farta inta ay ku qoran tahay laga yareerin lahaa, waxaa laga yaabaa inuu kusoo ururi lahaa 200 ilaa 300 bog. taana waxa weeye halkaana bacadda inuu khad uga marxi lahaa waraaqo iyo weliba lacagtuna barusoo hadhi lahayd. runtii marka la eego haddii la eego qarada farta fontaska waxa loo yaqaanay inta isku jiraan marka laga yimaado runtii shirkadaha buugagta af Soomaaliga daabaco dhan baa ka mid ah. inkastoo maalin dhaweyd aan arkayay buug sidaa ka duwan loo daabacay, waana arrin aan hambalyeynaya. waayo waxaad arkaysaa maalin kala mid markaad buugagta Soomaalida af Soomaali ku daabacan aad akhriso runtii inay tayadooda soo bedelayso. waana arrin runtii dhiirigelin mudan oo aad loogu daabo. dhaliisha kale ee uu buuggu leeyahay waxa weeyaan waa in maqaalada qaarkood aanay ku qornayn waqtigii la daabacay. runtii arrintaas waxay caqabad ku noqon kartaa haddii qof cilmi baadhis samaynaya ama curis qoraya uu is yiraahdo tixraac ahaan usoo qaado. markaasoo kale waxaa laga yaabaa inay taasina keento caqabad. markaa daabacaadda saddexaad waxaan oran lahaa inay tafatirayaashu ka fakeraan ay maqaal walba runtii waqtigii la daabacay waayo buuggu muddo dheer buu ooli doonaa haddii ilaahay yidhaahdo sida aynu bugaagta ku naqaano. runtii marka intaa laga yimaado buuggu waxaa lagu soo ururiyey maqaalo ay qoreen inankan iyo aabihii siciid maxamed gees iyo maxamed siciid gees. waxayna ka hadlayaan waayo aragnimadooda iyo aragtidooda ku saabsan caalam bulsheedka
ama waxaan loo yaqaana afka qalaad social world waana arrin runtii wax laga qoro oo mar walba dadku ay dhinaca qof walba meel buu ka taagan yahay caalamkan aynu aragnay waxbaad ka taqaanaa waxbaad ka shaqaysay waxbaad baratay marka aragtidaada halkaa ku aadan iyo waxaad kusoo kordhinayso ummadda iyo aragtidaadu waa muhiim runtii maqaalada buugga ku qoran waxay ka hadlayaan dhacdooyin siyaasadeed iyo bulsho gaar ahaan saddexdii waqti ee qoraalada Soomaalidu maanta u badiyay saddexdaa waqti oo waqtigii gumeysiga ama xorriyaddii ka hor 1960kii waqtigii u dhaxeeyay 1960kii ilaa 1990kii oo ku suntan wadankii la oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay ku bahoobeen labadii wadan ee waaga gacanta gumeysiga runtii ay ku jireen markii ay ku jireen loo kala oran jiray British Somaliland iyo Italian Somaliland wixii ka dambeeyay 1990kii iyo dib u soo noqoshadii Somaliland buugga runtii qayb badan oo kamid ah waxay ka hadlayaan maqaaladu ku saabsan yihiin waliba qaybta uu maxamed saciid isqori waxay u badan tahay dib u dhisidii dowladnimada iyo hay'adaha dawliga ah iyo maxalliga ah ee Somaliland gaar ahaan dastuurka Somaliland oo runtii wax badan ka qoray ka taataabtay una faalaynayo doodihii ka dhacay iyo caqabadihii ka hor yimid si looga baxay casharada marka la eego runtii buuggan wax badan baa ku dugan waliba waxaan doonayaa anigu bal casharada laga baran karo ku xiriirka maanta ay la leeyihiin maqaalada qaar waxay ka hadlayaan waqtigii xornimada ka hor waqtigii xornimada ka hor 60 sanadood maanta ma la yeelan karaa xiriirka ka dhaxayn karaa muxuu yahay sidee baase wax horumara waliba inaynu miisaano wax horumara ma sameynay dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada maxaase lagaga bixi karaa xalku waa muhiim in maxmarkano runtii waxaanu tilmaan aad xarfaan ugu nahay sida aynu caqabadaha u tilmaano laakiin xalku wuxuu nagu dhex jiraa inaga markaa in waxyaalaha qaar laga faa'iideeyo muhiim waxaan runtii jeclahay inaan dhowr cashar buug qoran buug wax badan ku qoran yani aan anigu isii waa muhiim aan kala soo baxo tusaaleeyo bal barbar dhigo waxa aynu maanta halkaynu taaganahay arrinta koowaad waxay noqonaysaa geesu wuxuu ku doodayaa hogaankii siyaasadda Soomaalida waxaa maroorsaday ee siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha xoolo dhaqatada gaar ahaan geeljiraha waliba wuxuu soo qaadanayaa Saciid Maxamed Gees oo abaha wuxuu soo qaadanayaa wiil ay Ingiriiska iska soo raaceen markay waxbarashada soo dhamaysteen wiilka waxaa la oran jiray Ikar Bana Haddada wuxuu soo bartay sawir gacmeedka qoryaha laga qoro wuxuuna ku hadli jiray 6 af oo kala ah waa sida uu qoray Gees 6 af waxay kala yihiin af Talyaani af Ingiriisi af Swahili af Carabi af Soomaali iyo af Barawe hase yeeshee buu leeyahay waliba waan ku garanayaa hase yeeshee geeltirihii xukunka kala wareegay khawaajaha yani wuxuu jeedaa nimankii gumeystaha waxba uma garanaynin sawir gacmeed iyo fine arts ayaan darada Soomaaliya ku habsatay buu leeyahay ilaa imika haysata waa dhaqankii reer miyiga geeltiraha iyo qabiilka iyo laandeeraha ku dhisnaa ayaa xukunkii qabsaday oo wali sidii geela loo dhici jiray haystaan xukunka reer ahaan lagu soo dhaco haddii 6 sano ka hor ay tahay istaagnayd 50 sano ka hor ay taagnayd 40 sano ka hor ay taagnayd runtii maantana waynu aragnaa way taagan tahay waliba wuxuu hoosta ka xariiqa wuxuu leeyahay siyaasiyiinta Soomaalidu waxay rumaysan yihiin inay dhowr boqol oo ay isku reer yihiin wax ku qabsan karaan ay wax ku xukumi karaan wuxuuna kaloo carabka ku adkaynaya leeyahay bulshadii ilbax ahayd ee Kismaayo Barawe marka uu ka hadlayo Soomaaliya Kismaayo Barawe marka Xamarweyne Shingaan iyo Xamarshad iyo afgoy dhistay waa laga takooray xukunkii dabadeed waxay ku dambeysay waa la wada arkayaa bil waa la wada arkay meel kasta oo ay Soomaali degtay marka wuxuu leeyahay bulshadii ilbax ahayd ee Kismaayo Barawe maanta waxa laga yaabaa magaalooyinka uu tirinayo inay niman geeljiri ka utaliya oo aan aabahoodii awoogoodna meelna u soo marin waa soo sheegay runtii dhinaca Soomaaliya haddii la eego nimankii xirfadlayaasha ahaa waxaan nidhi xukunka miyaynu u dhiibnay waa may iyaguba waxa weeyaan weliba xibsooc baa lagu sameeyey halkanna waa sidii oo kale marka in meel kastoo Soomaali joogto waa arrin yaala waana arrin u baahan runtii la eego haddaba bal haddaynu isweydiino haddii uu geeltirihii sidaa ku tilmaamo su-aasha isweydiintani maxay noqonaysaa runtii su-aasha isweydiintani waxay noqonaysaa miyaan geela wax laga baran karin
mise waxaynu ka soo qaadnaa geeljiruhu inay yihiin niman aan loo nixin ilaa waatii mahmahdii maxay odhan jirtay geeljire iyo nimaanada qombe ku fiicanta marka waa nimaan cidna u naxayn miyaa mise isaguna cidna u naxayn haddii ay magaaladii waynu kasoo wada jeednaa waxaa laga yaabaa inta magaalada ku dhalatay ilaa maanta xiriir bay leeyihin ama aabahood baa ku dhashay oo geeljirnimo soo maray waxaa laga yaabaa caa'iladooda qayb ka mid ah ayaa ilaa ay maanta reer miyiga oo xoolo dhaqataa laakiin nolosha reer miyiga iyo xoolo dhaqatinimadu wax badan bay xambaarsan tahay waxaanan aaminsanahay dhaliishu inay inaga tahay oo aynaan inagu wax badan runtii halkaa ka baran oo aan la isweydiin oo aan la dersin runtii nimanka culumta hogaaminta darsaa waxay tusaale usoo qaataan oo sida weliba diintuna aynu ku aragnay inoo tilmaantay nabi calayhi salaatu wasalaam lahaa dhammaan ambiyadii ari jir bay soo noqday marka hogaaminta la eegay waxyaalaha la eego waxaa ka mid ah ari jirkoo kale tusaale xoog baa loo soo qaataa laakiin geerjiraha runtii inta aan eegay bugaagta hogaaminta ka hadasha nin keliya oo la yidhahdo Kevin Ekenberry ayaan arkaan uu ka hadlay oo weliba 4 qodob oo aad u muhiim ah geela waa laga baran karaa oo dhinaca adkaysiga dhinaca resource managementka maamulka ama maareynta waxa aad markaa haysato ama dhaqaalahaada ama manpowerhaada xooghaada oo bulshadaada uu ka mid yahay xaqii anigu waxaan aaminsanahay dhaqanka xoolo dhaqato ilaa imika saameyn weyn ayuu nugu leeyahay laakiin inagu weli wax iska meynaa weydiin xirfadaha hogaamineed ee laga baran karo lagana soo moogari karo ilaa aynu wax iska weydiino oo nidhaahno war dhaqankeennan maxaynu ka baran karnaa oo aynu qalinkii warqadda u qaadano xag hogaamineed xag bulsha dhisid wax walba waxaan odhan doonaa anuu wargeeli jiraa meesha haysta taasina dhibaatadeeda nagu leedahay ta labaad waxa weeye hal abuurnimada hogaaminta siyaasadeed ee dowladnimada iyo bulshada runtii geesi wuxuu qoranayaa wuxuu soo qoraya wuxuu leeyahay welibaan kood gelinayaa Somaliland waxay ka hagaastay hal abuurkii iyo fikirkii waxaan ku doodaya in habuurnimadii ay caajisira galay waayo maxaa sababay qoraagu wuxuu yidhi waxay arrintii noqotay wax iska caadiyo inaan mataqaanaa laakiin sanadihii hore markii Somaliland dib loo soo noqday waxaa dhacay tartan iyo hal abuur dowladnimo ayaa lagu jiray nolosha xiiso badan bay lahayd waxaa la isweydiinayay sidee nabad loo sameeyaa sidee cashuur loo qaadaa sidee hubka dhigis loo qabtaa sidee booliis iyo ciidan xabsiyo maxkamado iyo shuruuc loo hirgeliyaa sidee dastuur baarlamaan asxaab sidee wasaaradda dowladda hoose hantidii magurtada loo diiwaan geliyaa lahaanshihii baabuurta iyo liisamada waxbarasho su'aalo la isweydiinayay waa adeegyadii bulshada ayuu ka hadlayaa adeegyada bulshadu waxay leeyihiin hal abuurnimo malaha waxaa laga yaabaa hal abuur markaynu maqalno number 1 qofku waxa ugu horreeya inaga nagu soo dhacaa waxa weeyaan waa abwaanada gabayada absolutely waa sax taas ta kale ee laga yaabaa inay nagu soo dhacdo waa xaggii ganacsiga saddexaad ee nagu soo dhici karta waxa weeyaan nimankan muhandisiinta aynu naqaan ama sida injineerada kale laakiin waxaa jira adduunyadu waagii hore way dayacday laakiin iminka dib bay ugu soo noqotay waa waxaan loo yaqaano social innovationka hal abuurnimada arrimaha bulshada adeegyada bulshada oo runtii aad moodo 20 sannadood ugu dambeeyay aad cilmi baaris badan laga sameeyey jaamacadaha adduunyaduna ay weliba aad u dirsan weliba jaamacadaha kulliyadaha ganacsiga iyo hogaaminta waxaad ku arkaysaa qaybo dhan oo imika la yidhaahdo social innovation department oo kale waana arrin aad loo barto runtii oo loo dirso waayo xalku ummaddu ku dhex jiraa innaga arrintaa usaa inoogu soo sheegay halkaybaynu ka taagan runtii marka la eego markaad imika eegto weliba dee qolooyinka iyaga horbaha joogaa aanu social media iyo saxaafaddii kala soconno muddadii marka la joogaba dhawaaq dheer ayaad maqlaysa oo dhawaaqa laakiin in laga midho dhaliyo oo laga daba tago wuxuu u baahan yahay hawl badan dhawaaqa waxaa ka mid ah tusaale u soo qaadanaynaa runtii waa dhexdaas waxaynu aragnay baaq shacab haddana waxoogaa kadib Somaliland jiray laakiin hawlaha ay bilaabeen xagee bay ku dambeeyeen miyay joogtay maxaynu ka baran karnaa maxaa laga baran karaa yaa u banbaxay yaa ka daba tegay yaa waa arrin loo baahan yahay waxaan la yidhaahdo afka qalaad pressure groupska waa in dowladdii lala xisaabtama cadaadis la saaraa haddii ilaa ka soo qaad
muuse bixi madaxweynuhu berri buu tegaya ka dambeeya sidan unbaa loogu qaylin kii ka horreeyey waa lagu qaylinayay siinaay kii kasii horreeyey waa lagu qaylinayay daahir yaale laakiin in wixii la weelayo la waana arrintaa u sheegayn waxay u baahan tahay arrin runtii ilgaara lagu eego tusaale nagu dambeeyay waxa mayd maxaa dambeeyay kala siido waxaan aynu arkaynay maalin dhaweyd toddobaadkiina soo dhaafay weliba arrin dhacdo gacan ka hadal ahayd runtii oo booliiska laga cabanayay taasoo ay ku dhacday inan saxaafiyad ahayd hooga garays iyo weliba hooyadeed markaad runtii eegto runtii inanta nabar baa ka muuqday marka booliisku inuu nabarkaa geysto in la isweydiiyo ma baha inay dhacdo mayahay xalayda waa fulisto halkaa joogsi marka inay dhacdo taas may laakiin hadday dhacday xaq bay u leedahay inay mataqaanaa cabato inantu xaq bay u leedahay inay hadasho laakiin waxaad moodaa markay wax dhacaan laba qaybood baynu kala noqonaa koox iyadii taageerta iyo koox kasoo horjeesta oo weliba malaha qaarkood aad arkayso aflagaado ay dhacayso waana arrin u baahan in dhalinyarada runtii lagala hadlo waxna laga qabto weliba hogaanka siyaasigii iyo hay-adaha ururada bulshada hay-adaha dowliga nimanka hogaamiya ilaa iyo waxbarashadii laga shaqeynayo ardayda war qofka saad ula doodayso inay si aadaab iyo asluub ku jirto noqota marka taa laga tago runtii iyadana waxaa jirtoo kale inaan iyaduna saxaafiyada aan jeclahay inuu shaqayso home cable tv magaceedu wuxuu abamanaya sagal oo maalin dhaweed iyaduna booliiska cabanaysay laakiin inantaa nabar kuma oolin oo lahayd suuqa dhexdiisa ay ugu qabsadeen oo aad u cabanaysay baa jirta iyaduna marka arrintani waxaad moodaa saxaafadii iyo booliiska iyo bulshadii arrintaa runtii maalinta dhaweed taliyaha booliisku ku ammaanan yahay dee sida uu soo afjaray hase yeeshee inay aanay arrintan oo kale dib u dhicin ayaa u baahan in runtii laga howlgalo arrimaha abuurnimo u baahna oo arrimaha la xiriira bulshada runtii waxaan arkayay inamada qareennada hadlaya waxay idhahdeen markuu taliyaha cusub yimid waxaanu siinay muddo si uu bal arrimaha wax uga qabto laakiin qofku markuu cusub yahay haddaad ka aamusto wuxuu yahay 2 sanadood baan ka aamusay haddaad ka aamusto markuu cusub yahay taa macnaheedu waxa weeyaan wixii meesha yaallay oo ugu yimid waa wax sax oo la aqbalay laakiin markuu cusub yahay inta la yidhahdo war waxaana waa la soo qabtay waxaana waanu ka cabanaynaa qoladii kaa horreysay waxaan may qabanay qabo oo markaa la jaanqaado waa markii ugu fiican tahay laakiin markuu qofku 2 sanadood joogo waxa weeyaan waa mar xeeliya finaal ka dhaceen marka in weliba qareemada namada qareennada ah iyo ururada bulshada iyo marka nin madaxa meel loo dhiibo weliba hay-adaha muhiimka sida booliiska oo kale inay isla markiiba la fadhiistaan oo ay la shaqeeyaan waa arrin aad iyo aad u baahan loogu baahan yahay hawsha ugu weyn ee runtii aan arko inay halkaa kasoo baxayso taliyaha booliiska oo oo kale anigoo tay raacaya hadalkii geeso qolo lahaa hal abuurnimadiiba naga hagaastay runtii waa in uu shicibka la shaqeeyaa sidii shicibkii isku soo dhaweyn lahaa marka laga sheekeynay mar labad waxaan social innovationka waxa la soo qaataa waxaa jirta sheeko uu inan Nigerian sameeyay in la yiraahdo Innocent Chukwuma ninkaasi markuu ardayga ahaa ayaa dhowr mar la xiray isagoo kamid ah dar ururshada activist buu ahaa runtii xarigii buu ka damqaday la xiray marka wuxuu sameeyay bahal la Center for Law Enforcement Education Google garaysan waad helaysaan 1989 kii buu sameeyay wuxuu yiri markii uu kur galay weliba lacag abaalmarin lagu sameeyay hay-adahan 5 kun oo waaga taagneed oo ay hay-adahan xuquuqda bini'aadamka ku dooday ay abaalmarin u sameeyeen buu oo halkaa ku dhisay oo ku bilaabay mashruuca marka waxaan ogaaday booliisku sidan ay u dhaqmayaanba inay aqoon darro ka hay iyo iyagoo mushaharaan ku filan qaata taasina waxay keentay inay u nugul yihiin musuqmaasuqi marka dhowr arrimood u taabanaya runtii wuxuu booliiska oo la tacliimiyo ayuu kala shaqeeyay sumcaddooda oo kor loo qaado markii dambe maxaabiistii ayuu survey ka qaaday 177 waxay yiraahdeen war waa tacdiyaan ku dhac wuxuu wadaba inankii wuxuu soo gaaray 13 sanadood kadib waa 2001 wuxuu soo jeeday inay shicibku maareeyaan booliiska marka wuxuu sameeyay guddiyo isku dhaf ah oo booliis iyo shicibka samaysan ka kooban oo la xisaabtama booliiska runtii 14 gobol oo kamid ah 16 gobol ee Nigeria ayaa laga sameeyay marka wuxuu waxyaalihii ugu yaabka badnaa shicibku waxay marnaba ismaan lahayn booliiska ayaa su'aal idinka jawaabi doona marka qof baa wax bilaaba inagu runtii
absolutely nimanka iyagan weliba qaar kayo aanu dee qurbaha kasoo qeylinayna war waxaas waa qalad ama waxaa la sameeyo runtii marka aanu booliiska halkan xitaa maba naqaano sida loola dhaqmo boqolkiiba 90 aan idhaahdo ya ma naqaan waxaa laga yaabaa inaan waxaa jira qolo booliiska la shaqeysto waxaa la yidhahdaa PCS police support officer baa la yidhahdaa community support officer powerka booliiska kale ma laha powerka booliiska kale ma laha powerka waxay leeyihiin runtii war ka warran baan ku dhaw wuxuu yidhi iminka dib ka shaqeynaya 10 sano wuxuu yidhi 2 sano ugu horreeyay ma ka carar gaaray waayo dadkii marka tirada war qofkii tirada war inaan kaagi halkan taagan way caayana xirnay basaas iyo xum ilaguna ilaa imika marka meeshii dadka la xisaabtamay ayaanu ka baqnaa macdalla kuwa halka jooga runtii hal abuurnimadu social innovation waliba arrimaha bulshada wax u baahan in la dhiirigeliyo oo dooda laga qabto khibradiina waa la kala amaahdaa oo dadkii la xiro in arrintaasina ay u baahan tahay inaan cid kale lagu daawanin runtii markaad eegto dee ninkan booliiska wax laga yaaba markuu aanu direyska xirnayn inaad caadi u aragno baska ina la raaco la sheekeysano laakiin markaa direyska xiran yahay waa cadowna enemy number 1 noqdo cadowkooda waana mid weligeen baan ku sameeyay waxna aanu carruurnimadiina ku weeyno markaan booliis halka ka aragno halka ka carari jirno marka arrin u baahan in laga daba tago arrinta galeen doonayo ku sii dheeraan ma taa wuxuu ka hadlay xisbiyada runtii waa arrin maantana taagan waxa ka hadlay wuxuu yidhi asaaska xisbiyada marka wuxuu ka soo hadlayaa 1940kii waxa Hargeysa laga furay buu xisbigii la oran jiray NSL Somali NSL ya Somali Society League marka wuxuu isla markii la furayba waxa dhacay Somali National League baan jiray Somali National League ay laga furay SNL marka waxa dhacay buu yiri iyadoo gumeysigiina soo dhaxray ayaa waxa la furtay buu yiri naadiyo beeleed marka naadiyo beeleedkii buu kan soo akhrinay naadiyo beeleedkii la furtay wuxuu yiri Hargeysa ka hadlaya wali wuxuu beesha waqooyi galbeedka Hargeysa degta ayaa jilciyad ka furatay maqaaxidii heegada agteeda dhinaca kalena beeshii barigii koonfurta bari Hargeysa degta iyana waxay jilciyad ka furteen xaafadda Sakati Liira dadkii aan labada reer ahayn cidla ayaa laga dhaqaaqay waxa bilowday tartan dowlatus ah oo heer beeleed ah ayaa Hargeysa ka dhashay waana la kala baxay oo la culo ilaa nabadii farax ka baxday marka wuxuu tilmaamayaa xitaa in gacanta la isku tigay oo dagaalkaasi wuxuu gacanta la isku tigay gud iyo fashil dhacay 16kii 17kii 18kii bishii October 1940 haddii aad ku eegto maanta marka social media qolooyinka qurbaha ay joogaan ka inaan gacanun baan la isku taginay wax la isku laaro oo qabaa'ilkii waaweynaa inay isiriyeen runtii waa arrin u baahan xisbiyadu waliba ay hoos u eegaan wuxuu soo qaatay hadal uu nin ka mid ah wuxuu nin xikmaawi ahaa oo reer magaalaha kaftan badnaa waxa lagu yiri war xageed ka baxdo wuxuu yiri sawtii laba bahal oo kala jaad ah aynu noqonay marka laga hadlo waxa weeyaan maanta maxaynu maraynaa labadii bahal ee kala jaadka oo ninkaas sheegay maanta waxaynu maraynaa xisbiyadii la isla qabyaalada kaga baxaan waxay marayaan naga guddooma labadan musharax ee golaha wakiilada deegaanka naga guddooma marka ma xisbiga waxa guddooma ma xisbiga dadka soo liis gareeya bisa aqalada wakiil arrintan waxay keenaysaa waxa laga yaabaa in ay noo keento meel hoose haddaan wax laga qabo maanta way dhacday laakiin 5 sanadood soo socda maxay noogayaan xisbiyada waa inay jiraan ururo bulsho oo la xisaabtami kara waa inay xisbiyadu taageerayaashooda in xisbiga la xisaabtami kara ma aha inuu caaqil kor istaago haddii sel wax laga qaban waayo waxay noqon doontaa maanta inanka laga reebay inuu isna caaqil inuu jufadiisii caaqil u samaysto oo yiraahdo tartan halkaa ka soo galo oo hoos loo dhaadhaco maanta beelihii baa hoos bay loo tartamaya waxa weeye beelihii waa winaay tartamayay reerihii baa maanta hoos u tartamaya taasina waa khatarteeda la runtii marka laga eego marka xisbiyadu waxa weeye sida Facebooka ku sheegay wuxuu yiri dood ballaaran baan ka galnay markii la dhisayay markii la qorayay dastuurka war xuquuqda beelaha inuu ilaalina mise xuquuqda muwaadinka dastuurku wuxuu ilaaliyaa xuquuqda muwaadinka laakiin maanta waxaad moodaa in xuquuqda ay xisbigu ilaalinayo xuquuqda beelaha taasina khatarteeda leedahay sidoo kale wuxuu ka hadlayaa xaggii saxaafadda uu leeyahay dhowr iyo 40kii waqtiyada markii xisbiyadaasi jireen runtii waraaqay lahaayeen soo bixi jiray dadka kula hadli jireen
maanta social media jira saxaafadii baa fududaatay laakiin qoraalku mar walba waa muhiim haddaan qaldanahay waa la sixi karaa laakiin aan weli ma arag siyaasiyiinta Soomaaliya meeshaa doonta badhi oo runtii intay dadkooda hor yimaadaan ama waraaqo u qoraya ama falsafad ka dhaadhicinaya siyaasadeed taasina waa arrin agteeda leh waxaan kusoo gabagabeynayaa buugan gees iyo gees maqaalo fara badan baa ku jira runtii marka waxaa laga yaabaa qolooyinkiina ka akhristay maqaalada ee saxaafadda kala socday marka aad buugga si kooban u akhrido aadan weligaa maqaalada badankooda aan markii horeba arag maantayna macna ku samayn maqaaladan xiriir badan bay leeyihiin oo mar wuxuu ka sheekeynayaa xisbiyadii halka waagaa jiray horaantii lixdameeyadii dabayaaqadii toddobaatanadii ilaa dhowr iyo afartankii soo bilowday marna dastuurka Somaliland iyo xisbiyadan sida loo dhisay maanta haddaba tallaabo intee leeg baynu qaadnay geedi socodkeennii geedigii miyaynu intee baynu xawl intee leeg baynu ku dhaqaajinay runtii marka qaarkood waxaa kusoo baxaysa in xisbiyadii waagaa jiray la is odhan karo inkastoo inaan u baahnayn inaan qoraallo badan keenno cilmi baaris dheeraad lagu sameeyo in tayadii xisbiyada waagaas ay ka ahaayeen bal waynu eegi doonaa waayo waagaa Hargeysa 64kii waxaa laga soo dartay 2 nin oo midna uu ka soo jeedo beesha uu qoran yahay buugga uu ka soo jeedo beelaha laga tala badan yahay midna uu ka soo jeedo Soomaalida kilkisha oo aan deegaan iyo dhalasho ku lahayn boohankaas haddana waa la doortay bal maanta waynu eegi doonaa doorashadan soo socota iska daa nin kilkishanaad beelihiis ka soo jeedan bal inaynu dadkii laga tirada badan yahay doorano ee aynu halkaa ina degan xisbiyadu hoggaanka siyaasiga waa muhiim tii mar waxaan kusoo gabagabeynayaa buuggan maqaalo badan casharo badan baan ka bartay anigu halkan kuma soo haddaan idhaahdo kulligood mid dul istaag waa arrin u baahan tixraac badan laga helayo arrimaha bulshada weliba dowladdii Soomaaliya ka sheekeynaya tayada wuxuu ka sheekeynayaa siyaasiyiinta Soomaaliya kuwa Somaliland ka sheekeynaya waxaan kusoo gabagabeynayaa waxa uu runtii arrin buu soo qaatay isagoo Allah raxmi ka sheekeynaya in ciyaal madaxweyne ciyaal iyo qayba oo markaa gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland wuxuu iyagoo is haysta oo arrimaha qaarkood aan ismari jirin haddana hadalkooda lama maqli jirin dibadda uma soo bixi jirin imikana waxaan aragnaa labadii wada halshaaba wixii shirka marka soo baxay dibadda ka hadlaan bal halkaa waxaa loo baahan yahay in wax badan dib ugu noqono aad baan mahadsantihiin runtii bugaagtu waa kayd waa dhaxalgal wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh